Somalians ripped off that state for billions of dollars, billions, and they contribute nothing. The welfare is like 88%. erayo maraka dhac ah oo ka soo yeeray madaxweynihii ugu qiyamka xumaa sooyaalka Mareykanka ayaa fikta sare ka galay warbaahinta baraha bulshada iyo hadalhaynta guud ee adduunka. madaxweyne Donald Trump ayaa si filasho leh u qaaday weerar afka ah oo aad u kulul oo si toos ah ugu wajahan Soomaalida ku nool Mareykanka. wuxuu u jeediyay eedo culus isaga oo aan keenin wax cadayn ah, laakiin maxaa keenaya weerarkan? maxaa la qorsheynayaa? maxaa ka dambeyn kara? su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan uga jawaabaynaa tabinteenan Tifaftir Media. soo dhawaada. The welfare is like 88%. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks. madaxweyne Donald Trump oo warfidiyeenka kula hadlayay aqalka cad ayaa sheegay inuusan rabin in Soomaalida ku noolaadaan Mareykanka. wuxuu ku tilmaamay erayo aan diblomaasiyad lahayn oo ay ka mid yihiin inaysan waxba ku beerin dalka, inay cabasho iyo dhibaato kaliya uun keenaan iyo inay yihiin gudaafad. We don't want them the hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other. hadalladan lama aysan socon cadayn, lamana aysan socon warbixin dawladeed. waxayna ahaayeen weerar siyaasadeed oo aan qariib u ahayn habdhaqanka qallafsan ee Trump ee xilliyada xiisadaha siyaasadeed jiraan. laakiin hadalka oo kaliya kuma aysan akayn. isla markiiba waxa bilowday in warbaahinta Mareykanka ay ka waramaysay in hay'adda ICE oo ah hay'adda muwaadinimada iyo socdaalka ay diyaarinayso howlgal weyn oo lagu beegsanayo xaafadaha Soomaalida ee magaalada Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. in ka badan 100 ka tirsan hay'adda ICE ayaa la geeyay gobolka, waxaana la sheegay in howlgalkaas uu qaban doono dadka aan haysan sharciga buuxa, dadka ku jira dacwadda sharci raadinta iyo xataa qoysas ay dacwadahoodu socdaan. arrintan waxay cabsi gelisay boqolaal qoys oo Soomaali ah oo halkaas ku nool. Trump wuxuu hore u joojiyay ama u xadiday socdaalka 19 wadan oo uu ku sheegay khatar ka dhan ah Mareykanka, kuwaas oo ay Soomaaliya ku jirto. sidoo kale maamulka Trump waxa uu hoos u dhigay tirada qaxootiga sanad kasta la qaabilo, isaga oo gaarsiiyay 7500 oo qof, heerkii ugu hooseeyay tan iyo 1980. waxaa kordhay mudnaanta loo sameeyo dadka cadaanka South Africaanka ah, halka Soomaalida iyo dalalka kale ee saboolka ah laga jaray fursado badan. xildhibaan Ilhaan Cumar oo aqalka Congress-ka ku matasha gobolka Minnesota kuna dhalatay Soomaaliya ayaa noqotay bartilmaameed kale oo uu wajahayo weerarka Trump. waxa uu ku tilmaamay gudaafad, wuxuuna ku eedeeyay inay nacayb tahay dadka. waxa uu marar badan weeraray labiskeeda iyo hankeeda siyaasadeed, isaga oo ku sifeeyay inay ka timid meel baaba ah. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. These are people that do nothing but complain. gobolka Minnesota si adag ayuu arrintan uga jawaabay, iyadoo duqa magaalada Minneapolis Jacob Farey uu yiri Soomaalida waa qayb ka mid ah magaalooyinkeena. cabsi gelin ma ogolaan doono, waanu idin jecelnahay, waana idin garab taaganahay. Ilhaan Cumar oo dhinaceeda warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inuu ku sifoobay Trump jinsiyad nacayb, isir faquuq, islaam nacayb iyo soo galooti nacayb. waxay sheegtay inuu yahay madaxweyne cunsuri ah. The president has always had very bigoted, xenophobic, Islamophobic comments when it comes to, people who are of Muslim faith or people who are black. We've seen him call African nations as shitholes, and so it's not really surprising. But what is weird to me is just how creepy he's been obsessed with me. dhinaca kale dawladda federaalka ah ee Soomaaliya war rasmi ah kama soo saarin dhaleecaynta Trump ee ku saabsan in dadka Soomaaliyeed ay yihiin gudaafad aan wax macno ah ku fadhiyin oo ka tagay meel cadaab ah. laakiin ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa si guud mara waxa uu sheegay in hadallada Donald Trump aysan u qalmin jawaab, haddii laga jawaabana ay noqonayaan ficiltan. waxa uu sheegay in sida ugu habboon ee laga gudbi karo ay tahay
in la isa sii dhaafsiiyo isaga oo sheegay in maagida Trump ee dowladaha inay Soomaaliya oo kaliya ku koobnayn laakiin Nigeria iyo Koonfur Afrika iyo dowlado kale uu ku jaasjaasay xogta rasmiga ah ayaa muujinaysa in Soomaalidu yihiin bulsho firfircoon oo ku biirisay dhaqaalaha Mareykanka wax badan Minnesota oo kaliya waxa ka diiwaan gashan boqolaal ganacsi oo Soomaali leeyihiin kumanaan qof ayaa ka shaqeeya caafimaadka waxbarashada qaanuunka iyo wixii la mid ah 84% ragga Soomaaliyeed ee gobolka Kentucky waa kuwa shaqeeya 87% Soomaalida dibadda ku dhalatay ee Mareykankana waxa ay yihiin muwaadiniin sharci ah 58% Soomaalida Minnesota ayaa haysta dhalashada dalka Mareykanka Soomaalidu waxay ku jiraan suuqa shaqada waxayna bulshada ku soo kordhiyeen dhaqaale dhaqan iyo firfircooni maanta waxa Mareykanka ku nool 260,000 oo qof oo Soomaali ah oo ku kala firirsan Minnesota, Ohio, Washington, Virginia, Georgia iyo gobollo kale badankood waxa ay tageen dalkaas 1990yadii xilli dagaal la sokeeyay ay ka jireen Soomaaliya waxa ay dhisteen nolol cusub waxayna ka mid yihiin qowmiyadaha ugu muuqda Mareykanka hadallada Trump iyo qorshaha hay'adda ICE waxa ay abuureen xiise cusub oo siyaasadeed laakiin hal shay ayaa muuqda kaasina waa Soomaalida Mareykanka inay yihiin bulsho adag oo aan sahal ku burburaynin weerar siyaasadeed ma bedeli karo xaqiiqda dhabta ah oo ah in Soomaalidu yihiin bulshada hormuudka u noqotay gobolka Minnesota oo mustaqbalkiisana qayb weyn ku leh arrintu wali waa ay sii socotaa waxaana la filan karaa inay yeelato saameyn siyaasadeed oo muddo dheer muuqata dad badan ayaa rumaysan in doodda Trump aysan ku saabsanayn arrin soo galooti nacayb ah oo kaliya laakiin Donald Trump ayaa hore waxa uu beegsan jiray dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda Soomaaliya isaga oo ku sifaynayay in ay yihiin meel aanu qaanuun ka jirin kala dambeyn aysan ka jirin dawladna aanay ka jirin waxa uu Donald Trump dhammaan dhibaatooyinkan u geysanaya isaga oo ka cabanaya gabadha laga soo doorto gobolka Minnesota ee Ilhan Omar taas oo laf dhungasha ku noqotay Donald Trump Ilhan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa dhowr jeer Donald Trump ka hor istaagtay shuruuc uu doonayay inuu ku dhaqo dalkaasi Mareykanka qawaaniintaas uu soo rogayay oo ay jamhuurigu la dhacsanaayeen ayay Ilhan waxa ay noqotay tiirka kaliya ee ka hor imanaya taas oo ku qasabtay in iska daa'iyada uu isirkeeda u gafo si uu u qabjabiyo laakiin waxa ay qadiyadan ku dambayso waqtiga ayaa noo sheegi doona waa Abubakar Maxamed oo idin leh la socodkiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad nagu xirnaataan intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan